iyo teknolojiyadda casharka waxaan si gaar ah ugu baran doonaa sidee loo samaystaa Gmail account ugu horreyn waxaad tagaysaa Gmail-kaaga ayaa tagaysaa Gmail-ka markaad ku dhufato haddaad Gmail hore u lahayn wuxuu ku soo saarayaa Gmail cusub samayso haddii aad hore u lahayd oo rabto mid cusub inaad samaysatana waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay add another account meesha ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa marka aad ku dhufato waxaad dooranaysaa marka Google-ka ayaa dooranaysaa markaad Google-ka ku dhufato marka aad Google-ka ku dhufato wuxuu ku soo saarayaa form-kan markuu form-kan ku soo saaro haddii aad account cusub markaad samaysanayso waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay create account ana account cusub samee labada option buu ku weydiinaya for personal use waxa uu rabtaa inaad si shakhsi ah u samaysato mise business baa u samaynaysaa saarna waxaan u baahanay markaa inaad si personal u samaysano personal baan dooranaynaa marka aan doorno form-kan ku soo saaraya xagga ugu horeeya waxaad gelinaysaa magacaaga xaggan ku xigta haddii aad naanays dooranayso kale ayaad gelinaysaa kadib markaad magaca soo geliso wuxuu ku soo saarayaa form-kan ayuu ku soo saarayaa marka waxaad dooranaysaa waxaad gelinaysaa maalinta iyo bisha iyo sanadka aad dhalatay xagga hoosena waxaad gelinaysaa genderka ayaad gelinaysaa oo ah rag iyo dumar halkan waxaan gelinaynaa koodii halkan waxaan dooranaynaa tusaale ahaan bishii 8aad halkan sanadka waxaan dooranaynaa 1997 oo kale gender waxa weeye waxaan dooranaynaa marka waa jinsiga aad tahay haddaad dumar tahay waxaad gelinaysaa female haddaad nin tahay waxaad gelinaysaa male baan ku dhufanaynaa kadibna waxaan leenahay next markaanu next niraahno wuxuu ku soo saarayaa marka form-kan ku soo saaraya wuxuu ku leeyahay qaabka aad rabto inuu noqdo oo aad rabto Gmail-kaagu inuu ekaado dooro adsalaan Ahmed galaysan ee gmail.com saamiya rabtaa bayn magaca galaysan la soo hormariyaa rabtaa saarna waxa leenahay kan u horeeyaan rabnaa ka horeysa kadibna waxa leedahay next marka next ku dhufato wuxuu ku soo saaray wuxuu ku leeyahay password cusub samayso password cusub aad gashanaysaa marka aad hadhow xasuusan karto oo aad ilaaweyn markaad password-ka geliso waxa leedahay marka next baad ku dhufanaysaa kadib markuu form-ku ku soo saaro waxa leedahay wuxuu ku leeyahay review your account information xogta ay soo gelisay dib u review garee markuu form-ku ku soo saaro waxa uu ka rabaa inaad aqbasho marka xeerarka Google-ku uu leeyahay oo isagu xeerarka goonida oo waxa leenahay meesha ay ku qoran tahay agree baan ku dhufanaynaa agree meesha ay ku qoran tahay agree marka aynu ku dhufanay automatic